السلام الله عليكم مقار شرف لك كسو دوادا علي فانتاستيك maanta waxaa idiin hayaa fantastic oo 84 saacadood soome hey fantastic soo dhow waa dhowaa brother cali ow aad ma santahay thank you haddii 84 saacadood aad soonte maxaa dareemay intaanan sideedaas aadinbo 84 saacadood waxaan rabaa inaan si tartiib aan kugu bilaabo qaabka iyo ma aragtay dareenka maalinlaha ahay oo aan la kulmay waxaan go'aansaday jimcadii la soo dhaafay inaan soomo targetkeygu wuxuu ahay 72 saacadood laakiin 84 saacadood aan gaarsiiyey oo waxaan rabaa xataa inaan sii wado 84 saacadood marka maalintii ugu horeysay aan bilaabo soonka kowday ahayd duhurnimo 7 saac qofba siduu u yaqaano maalintaas aan bilaabo jimcada 7 saac waqtiga ma aragtay duhuradii 24 saacadood waxay ii buuxsantay markii ugu horeysay sabtigi duhuradeeda 24 saacadood saasaan ku haystaa marka habeenka ilaa ma aragtay saacadii aan bilaabo saacadeeda kale 24 saacadood ii noqotay marka waxay ahayd aad igu adkaatay horta 24 saacadood ugu horeysay madax xanuun maskax xanuun iyo baahi tiro badan waxa oo ugu darnay oo ma aragtay aan u maleeyay xataa inay bini aadamka jinku nool yahay meel kastaan furo cunta iga soo baxaysa wadada markaa marayo ma aragtay darbiyada oo faaniska oo kalaamada cunta la ii soo qoray qurux badan weliba naftana mar walba marka waxay ugu adkeynaysa inaan cuntadaas cuno maadaama laba beri oo soomaysay oo 24 saacadood shaqeynaysa si kugu sahlanaatay laba beri maalinta labaad amarayso horta aniga 24 saacadood waxaan shaqeynay shift la dhahayo ma aragtay back to back shift waxa la marka subaxdii shaqo galay waxa ka soo baxay galbiya ka soo baxay gurigaada imaanay xoogaa wanasanay howlahaaga adduunkaaga sameeysanay kadib haddana 3 saac 4 saac kadib waxa galay shaqada habeenka ka soo dhameysay toos tii subaxdii ku furay haddana taasa la shiftiga oo ma aragtay back to back taas horta sameynay oo aan naab dhax gashahay waqtiyada oo saydka u daalay taas waxa ugu daran waqtiga oo habeenka markaan shaqada galo habeenka aan shaqeeyo subaxdii aan ku xiray taas ugu daran taas waxaan sameey jiray marka waxaan ku darsan jiray 45 saacadood mar qaarkiis oo naab ah ramadaanka soonka aan soomay marka effect wuxuu igu yeeshay anigiyo daalan hurdo i hayso jirki daalan yahay intaas oo saacadood shaqeeyay baahan haddana daahil waxa igu dhacay oo yaab leh marka waa iscelihay anoo isceli karin xataa ma aragtay mar qaarkiis is leeyahay war shaqada inta iska joojisnay oo maqaayad meesha ama tagta ama ma aragtay cuntada favorite-kaaga cunta laakiin ilaahay wuxuu ii suurta geliyay inaan saas ku adkay marna ma aragtay aan ismashquuliyo marna aan ma aragtay iska adkeeyo ilaa ma aragtay aan ka gaaray inaan indhahaas ku qabto seexdo ama ma aragtay aan shaqadii ugu cuslaato labadaas maraan iloobay ma aragtay inaan wax cuno 48 saacadood ii buuxsantay maalintii kale caliyow horta waxaa yaraata markaas baahidi 48 saac markay ii marayso baahidi way yaraata laakiin madax xanuunkiya weli laakiin waxa igu ma aragtay meel dheer maskaxda dhan ma aragtay oo iwaalayso markii 48 saac aan dhamaystay waxay ahayd axad duhurada camal ahayd 48 saac markaas ay dhamaatay caliyow 48 saac saa markaa ugu dhamaahayo oo aan usii socdo 50 saacadood ilaa ma aragtay 72 saacadood aan usii socdo caliyow baahidii waa isdhaafnay madax xanuunkana waa isdhaafnay waxaan noqday qof firfircoon waxaan noqday qof energy leh waxaan meel kaga soo dara oo aan maqlay mar hore in la yiri Soomaaliyeed 5% way waalihiin tiyaan soo xasuustay caliyow aniga dhan waxaan dareemay inaan buuxo marna waa dhiman tahay marna waa buuxdaa mogtahay
ani dhan waxaa dareem inaan buuxo micnaha maskaxdayda culayska uu ka degay jirka culayska uu ka degay anigoo sameeyey weliba waqtigaas waxay ku aadaysa 72 saacadood waxay igu aadaysa anoo shiftigii aan sameeyey jimcadii oo back to back ahay inaan sameeyo isla waqtigaas ay igu aadi ilaahay amarkiis haddaan ku dhaco caliyo 72 saacadood markay ii dhamaatay oo shiftigii back to back aan soo dhameeyey oo guriga imaaday inaan seexdo ma rabin anuu habeenkii dhan soo jeeday maalintii oo ku daray oo maalintii ka horeysan aan shaqeeyahay laakiin waqtiga aan bilaabay soonka hal mar yaa sareeta ku saaray igaad aada u daalnay hurda ay haysay maskaxda ay wareeraysa laakiin 72 saacadood markaan saan u galay oo aan guriga kusoo laabtay inaan seexday ma rabin qasab isku seexsiyey oo waxaan isku seexsiyey waxaan isdhahay biri inaan shaqeysaa laga rabaa iska seexo habeenkii saq dhaxan soo kici rabo xasuustaa markaas ina seexdo oo waxaan kasoo kici rabo 7 saac habeenimo 7 saac habeenimo markaan kasoo kacay waxaa ii gashay 80 iyo maaragtay 2 saacadood 82 saacadood waxay ii gashay anoo fresh ah oo energy hayo hurdada waxaa ugu kici jiray cali oo been ma sheegi kariye yaa al nafta ugu kici jiray waa inuu alarmiga 5 mar camal igu soo naqdaa markaa kacayo laakiin markaan anoo intaas soo shaqeeyay soo daalnay hurdada isla markaa waa soo fadhiistay energy-ga iyo waxaan dareemay macnaha iyo tamarta ahay cali oo 2 timir aan cunay markaas ma ogtahay xitaa marka asaas soo soontid normally isla markaa cunto cuni kartid oo dheefshiidkaaga seexday maxaa lahayd ma aragtay immune systemkaaga oo difaacaaga ma arkino adkaaday bahaladii jirkaaga ku jiray oo dhintay waa la cunay oo ma aragtay bahalihii fiicnaa cuneen waxaa soo dhashteen kuwa cusub oo shaqaday hayeen isla oo howlgabka ay ka ahaayeen oo qabahayo marka qof dhan oo waxaa noqday adina fresh ah inaa maqasho xataa suurtagal cilmiyan way iga fiican tahay dhanka oo ma aragtay sida saxda dee aniga ilaahay jirkeen difaac u geliyay difaac jirka waxaa ka mid ah 4 qayb oo ka mid ah waaye oo haddii la gaajeysiiyo dee way dhintaan kuwa oo tabarta yaraada dhintaan kuwa kaleeta marka soo cusboonaysa saas isku cusboonaysiya marka ilaahay jirkeena awood u geliyay dadka badana ma fahansano marka soonku waxyaabaha oo waaye oo ugu fiican marka taana waa kugu badan laakiin su'aasha kale ku weydiiyaa waxay tahay maxaa kugu dhaliyay inaa cali horta waxaa igu dhaliyay inaan soomo in badanan waxaa maqlay ramadaanka inuu maaragtay u fiican yahay ramadaanka inuu maaragtay waxa u fiican yahay maaragtay inuu waxyaa jirka reset inuu yahay waxyaabaha qashinka iyo waxaas ay ka baxayaan marka aniga waxaa ahay qof oo aad u necab daawooyinka mar walba oo aan dareemo inaan cunto badan oo waxa aan cunay oo sunteeda leh waxaan sameeyaa ma aragtay waxaan raadiyaa daawooyinka oo naturalka sida toonta iyo basbaaska oo ma aragtay inta la qasto la cabayo iyo waxyaabahaas oo jirka u fiican si natural ah laakiin cunistiisa oo xataa adag tahay marka waxaan isdhaa baroobay soonkan oo ma aragtay halka maalin anaga aan soomi jirnay bal waxaa ka dhigtaaba mid dheer si ilaa wixii ugu dambeeya oo jirkaaga ku haro oo sun ama ma aragtay waxa ah ee iga baxaan waxaan is dhihi jiray marka isla soonka halaas leh ku saabsan yahay laakiin ma ogeyn soonka xataa wuxuu sifeeyaa ruuxda qofka waxyaabo oo xunxuna aragtaa waxyaabo xunxuna fiirsataa maskaxdii waxaa gasho ma aragta buuq waxaa arkay negative mar walba oo ma aragta qofku hadlaya arkay waxyaabihii marka maskaxdii way ka buuxsamaan markay ka buuxsamaan oo aad soontid oo intaasoo maalmood aad soonkaaga ka dhigatid ruuxdii xataa way ku sifeysmay macnaha tashwiishkii iyo stresskii baanarooyadii iyo xanaaqii iyo waxa dhan ka baxaya naftaada inaad u taliso naftaada inaad u talisana way imaanay marka waxa kaloo soo xasuustay ciyaalnimadeyda waxaa maqli jiray nafta markii la sameeyey ilaahay la hor keena liyo markaasaa waxaa la yiri aniga yaa waay adigana yaa waay waa la weydiiyey nafti waa soo booday waxay tiri adiga waa anigana aniga waa ilaahay nafti waa qabayay cadaabkaa la geliyey cadaaba la geliyay naartaa la geliyey cadaaba sidii loo cadaabayay waa la soo bixiyay sanooyinka bacda la soo bixiyay la yiri marka la soo bixiyay waa la hor keena hadan ilaahay waxaa la yiri haye aniga waa yiri markaas ay taagan tahay wili adiga waa aniga waa horta cadaabka waa lagu soo daalay marka looga soo daala waxaa la yiri meel ha lagu xiray cunto yaa la siin wax cunto ah
yaa la siin nafti waxaa lasoo bixiyey iyadoo dhehayso adigan ilaahayaa tahay anigan addoonkaaga ah marka tiyaa niyaho mucjisadii aan soo xasuusto tii 2 saacadood markaa maray baahin ima haynin madax xanuun ima haynin stress ima haynin ha haddana normally mar qaarkiis caajis iska ka hayo wiligaa ma aragtay remote meeshan ku yaal qof inay ku soo qabato inaad rabtid waxyaabahaas camal nafti amar ma kaa qaadato waa micnaha amar inay kacdo soo qabsato ma amri kartid nafsadaada waxyar hadaa ka dhex galo waxaa maqlay adiga 3 sano ka hor camal miya 4 sano ka hor miya camal waxaa soo bixin la dopamine fast oo yani waxyaabaha nafta ee rabto yani inaad naftaada adig u tali kartid inaad ka celi kartid dopamine fast sida fiidiyowadan gaagaaban la fiirsanayo qof lagama yaabo film fiirsi karta ma jirto qof fiirsi karta 10 daqiiqo dhaxtaa ma jirto oo TikTok dad waxaa loo xal bilaw 2x wax lagu sii fiirsanayo marka nafti in loo taliyo hadda waa iska deeyay waaba iyada wax u taliso ha marka waxyaabahaas maskaxda ku soo dhacay waxaasa ku soo dhacay waxaa ogaaday marka nafti inay dib waxaa la yidhaha mogta mar qaarkiis nafta wax badan ay ogtahay allah future-kaaga xataa way ogtahay allah nafta keliya bas awood uma lahan inay kuu sheegto ay ku dhahdo waxaan ma aragtay ha sameyn saan ha sameyn doontaa saan ma dhihi karto laakiin way ogtahay la yidhaha future-kaaga sababta waxaa la yidhi markaa seexatidoo kale markaa inaad dhimato camal la lahaa soo nafta way baxdaa oo waxay aadaa ma aragtay way wareegtaa micnaha oo waxay tagtaa ma aragtay meelo badan so nafta maadaama ay ogtahay wax walbo xasuus waxay gashaan bis dhahaybo baahidii lagu dilay oo taasaa ahba qaabka lagu nadaamiyo oo lagu toosiyo idabta loogu yeelo waan is aragtoba ramadaanka iyadoo intaas soo yarsoomaysid inta ramadaanka ma aragtay la gelin waxaa soo qastaa soo qasee ramadaanka markaa imaadid wax kaa cibaado badan male oo kaa wanaagsan waxa keenaya waxay tahay nafta idabay yeelana waxa u dirta way sameyna marka tiyaa ii soo baxday inaan nafta meesha u diro inay sameyn karto waxaan ka celiyo ka ceshoomi karto energy ay hayso waxa iigu daranoo rabo inaan ku daro oo aan arkay oo ani aan markhaati qof ama aragtay aan u weydiihayna waxay tahay aniga cunto oo waxaan leeyahay oo favorite ah haddaan xataa rabo qof oo weyn ama ma aragtay inaan cazuumo ama qof oo ma aragtay igu weyn aan inaan cazuumo haddaan rabo cuntadaasa ku cazuumaa cuntada ma noo sheegi kartaa walaale ha waxaa waaye ma aragtay waxaa laga sameeyey chicken iyo gypsy iyo farmaajo la isku daraa iyo waxaa lagu daraa ma aragtay markaas sauce oo waxaa laga dhiga ma aragtay oo laga sameeyey mayonnaise cuntadaas 6 biri 5 biri aa cuni jiray micnaha ugu yaraan isbuuci 6 biri haddaan meela geedkaas aalin aan tago oo aan isbuuc soo cunin isbuucaas kala daahil waxaa ahay oo isaga caliyow 8 saacadood markaas somnaa kadib oo timirta aa cuni waxaa lii ogolaya marka qaabkan processkan waxaan rabaa inay dadka fiican u fahmaan haddee raba inay soomaan dadka raba inay soomaan in markay 8 saacadood kuu dhamaatay inaad 2 timir cuntid sugtid 2 saacadood cuntid wax aan carbohydrate ku jirin cuntadan oo saliida leh cuntadan waxaas dhan inay cunin laakiin afagaadho ukun waxyaabaha oo ma aragtay waxaan lahaynin carbohydrates aan lahayn inay cunto sokor inay ka fogaato cabitaankan ma aragtay oo soodhooyinka dhan ay ka fogaato biyo bas inay cabto markaas iyo inay ma aragtay khudaar cunto so 6 saac markay iigu darsoonto intaas waxaa lii ogol yahay cuntadeeda normalka aheed marka waad dareemi kartaa 8 saacadood oo soon waa ku dhawaad 4 maalmood waxaad adiga favoritkaaga ahaay maahan wax kale maraadsiisid markay soo dhamaato macallaki waa baxay waxaan tagay maqaayadii oo ma aragtay nin waxaa jiray oo oday oo haddaan taga meesha oo aan fadhiisto wax ma dhihi jirin macnaha waa soo diyaariha oo keena capsulonkii keeni jiray meeshaan tagay ninkiyaa joogay alaabtii ii soo sameeyay caliyow ilaahaygi abuurtay iga markhaati ah cunaha lay qabtay caloosha wixii lama qabsan markaan geedka afka saas u geliyey cunahan inuu virus igaga galane aan ka dareemo micnaha waxay ila noqotay waa dareemooya micnaha inay dhib igu tahay inaan cuno dabcan inay dhuuntii maxaa wax maritaankii ay ilowday calooshii in maxaa wax ku dhicitaanka ay iloobeen waa ogaay laakiin waa soo kiskisaan usoo kiciyey oo maaragtay markaa 2 timir cunay oo aan khudaartaas cunay micnaha inaa okay ahaadaa la rabo markaa cunay waxaas ma dareemi wax alaabtaas markaa cunay laakiin dhuuntaana la qabtay sida qof hergab oo dhuunta ugu bilowdo ma aragtay
oo in aad dareemayso inuu virus ku jiro viruskaas camal aa dhunta iga galay haddaan dhaho normally markaas halkaas standard oo la ii keeno waa ka bixi jira dhan kale ugu bixi jira macnaha waa dhamay jira daawo biisan 30% yaa cuna macnaha wixii aad dhan kale ugu bixi jira imagine adoo saxan lagu soo dhigi jira saxanka dhamay jirtay waa lagu soo dhigay geeskan bas adiga oo dhankaaga ah ka cunta 30 70 waa cunaysa waa cuni waa okay su'aasheeda kale waxay tahay waxyaabo ma jiraan inta soonkaas ku dhex jirtay ku fikirtay inta sooneed waxaan ma aragtay waxyaabo badan jira oo ku fikiray laakiin inta badan nin degan oo maxaan lahayn ma aragtay xataa hadalkiisa oo boodboodeynin oo xanaaqeynin oo qofka xataa marka isal waxaan ka xanaaqi jiray xataa ma ka xanaaqeen inta shaqada tagay waxyaabihii isal idhiib jiray ma ka xanaaqi jirin marka waxaa jiro waxaan rabaa inaan hal digniin siiyo laakiin intaanan u gudbin waxyaabihii aan dareemay digniinta aan raba inaan siiyo waxaan rabaa inay ogaadaan qofkii rabta inay soomto 84 saacadood waxaan ka codsahaa hal arin oo muhiim ah sababtoo waxaa jirta mar oo soonka xaaraankaaya xitaa maxaa dhahay ma aragta ramadaanka oo ma aragta waajibka dadka ku oo aan ognahay aan marmar xaaraanka ah wuxuuna kaaga yahay qof jirana jirto oo sokor qabto stageka ugu dambeeya marayso hadday soonto nafsadeeda halis ku galaysaas so nafsadeeda hadday halis ku gasho ay dhimato mina qofkaas naftaas waa loo haystaa sababtoo ilaahay mar walba uu kaa xaaraantinimee wax nafsadaada dhib ku ah sida hadda doofaarka oo kale waxaa noolaga celiyey waxa ma aragtay amar le ma ahane waa nafsadeena oo halis ku yahay so ramadaanka marka maalinta uu ku yahay halis caafimaadkaaga waa xaaraan uu ka yahay normally kaas inay dadka fahmaan aan rabaa so wixii inay rabaan inay soomaan saasa sameeyaan midda labaad oo ugu muhiimsan oo qofkas isweydiiya waxay tahay warniyahow afka saama isugu xirtay sida soonka caadiga ah mise kale wax kala jiray waxaa jira hal walax oo aan isku caawihayo oo ilaan waa u baahan tahay saadan dehydration kugu dhicin waxaa u baahan tahay biyo in cabtid sababtoo ramadaanka caadiga wuu yar yahay kan laakiin 84 saacadood waa sidaa daraadeed waxaa u baahan tahay nafsadaada waxay u baahan tahay inay biyo hesho sababtoo 75% oo adiga jirkaaga wax waa biyo waay marka waxa inay baxaan la rabo oo sunta inay baxaan la rabo cuntada waay ma aha biyaha waa u baahan tahay marka waxaa sameynaya oo muhiim ah caaga liitarka oo hal liitar barka ah buuxine waxaa ku daray hal qaandada leh oo yariista ah oo ma aragtay cusbada ku daray sii saltiga weliba ma aha cusbada caadiga oo ma aragtay oo khafiifta ah oo ma aragtay caadi loo soo sameey ma aha sida biyaha jirka toos ugu galaan qaandadaas ku daray halkaas bar liitar kiskisa isaga cabi 24 hours hadday ku dhamaato mid kale 24 hours ku dhamaato adiga biyo iska dawad xataa waxay ka caawinay 48 saacadood ugu horeyso marka cunto daahil ah kugu dhaco daahil kugu dhaca waa looba hadaadan likarno iska adkeenin waa gelay cunto cunay so biyahaas ka boonay marka xogaa waa degay so waxaan rabaa inaan barnaamijkan kaga faa'iideysto oo igu soo dhacay Soomaaliya xaaladda ka jirto inta guda jirto barnaamijkana waa wax ka dhaxarkay wax ka dhaxarkay waxa waaye ma aragtay Soomaalida depression ahaayo stress ahaayo trauma hayso maxaa la ma aragtay paranoia hayso qof walba qofka kale ma aragtay ma aaminayo waa la kala disan yahay macnaha waxa keenayana waxa waaye bini'aadanka hormoonada ku dhex jiro iyo waxa ku dhex jiro ma aragtay unugyo iyo bacteria ku dhex nool maanta hadaad dhala khamri cabtid socodkaaga waxa waa ma aragtay wuxuu naqaha geegeesa u socday macnaha waa ka wareeriyay baasha go'aan ma lihid tala ma lihid fikir ma lihid waxna ma cisho karaysid waa aragteen dadka oo wadooyinka ku dhacdhaco ma aragtay oo cabsan waa aragteen waxaan aniga aaminsanahay cuntada la cunaayo inay wax ku jiraan maadooyin oo drugs ah ama maadooyin waxa ma aragtay sun ah oo adiga waxba ka yeeli karin macnaha adiga kugu tabar ahayn laakiin unugyada kugu jiro yar yar oo saaid ku yar inay target gareysan karaan unug kasto adiga kugu nool oo shaqo ku hay haduu cabto waxa noqdo ma aragtay qof sarqaansan noqdo
wax kasta oo adiga noloshaada bay ka halaabayaan sababtoo wixii kuwada iyaga waay wixii immune systemka ku adkeeyaa iyaga waay ayaga haday sida adiga adoo qof bini aadan oo qamri caabi camal iyagana loo cabsiyo oo wax kasta subaxa cunta galaba cunta habeena cunta sunti marka hadba markay ka bixinba cunta kala siiyoosa soo suurtagal ma aha marka jirkaaga iyo nafsadaada inay ma aragtay farxado moodka ka qaldan adoo qofka xanaajinin oo kula dagaalan waa iska xanaaqsantaa maanta soo waxaan ka dhax arkay marka in Soomaalida waxay u kala didsan tahay madaxda aysan ma aragtay isku aamineynin isku la hadlaynin wax ra'yi meel isku la keeni karin dadkan hogaanka u dhiibtay oo Soomaaliyeed aysan hal meel isugu hogaami karin oo u kala qabsan yihiin in jirkooda sun badan ku jirto